جنسية قفك مسلم كي والعقيدة وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول والتكين يسمى أنت تركي أو سياسة هان أنو على هاي أركتدا أي كوا ذاقيان سومالا كو إيجيان أنو كو كلا جد سنة أولا إنه وقلدنتي تبو إيجا إلى أنه هذا أوجرجار نو قال هذا أوجرجار هذا ما يسمى المنهج التشريعي الفهمي كينية إن أنض ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يا إن حقوق ذو الدفاعين قال ما أنت أيدوني صدق إسلام كائني كبر بوريسو سبحان الله تعينك هذا النتاوي إذن يعني باختصار أنا هو وقت بدل كقاضي كل يسقال بقول يا أفريقيا كنت كيبورد شيء كلا إلى أرتقان سيد تاريخ تلاقوا شيء إنه يرو أذو خير أذو تلاسن كل شيء بوه ولذلك وحوي وكونياش إسطنبول بكل شيء meelahan maanta dee qandahar oo kale iyo sheedaha iyo inamooga iyo subxaan allah koreyaasha dadkeena jilicsan ay degan yihiin daami oo kale iyo meelahaas oo kale ayuu ku koray waxbarashadiisa wuxuu ka soo saari jiray wuxuu dadkan sambiilka la wareegay marka keegiro simsim la oran jiray oo ay aad u isticmaalaan buu iibin jiray iyo nacnac yar iyo waxaas la wareegi jiray si uu iskaga bixiyo fiiga reerkoodana wuxuu ugu taray كل سجال بقول سجال يلي إحنا كيبوها شنية تبنشرها مركي وبلابي إن وكقيب قلو سياسة دي مركا إسطنبول حارد وجوجي أو أرضيدو أي سمين شرين دقائق سياسية من اجتماعية وحنو نقول الشخصية متفوه يلا سوق دبي شيخي سي مركاسي مدرسة مالين وطولين وبروس ذا لوت كذا ayaa markuu elementary ahaa ayuu yaa maanta saambal noqonaya sida loo tukado dadka tusaya marka rajadii Erdogan baa soo baxay markaas ninkii macallinka uu aad uga helay qaabka uu tukaday iyo sida uu waafajiyay nusuustii markaasi rasuulku kaleey salaatu wasalaam tilmaamay almuhim dhaqdhaqaaqaasi waxa uu keenay in uu 69 isagoo 15 jir sida ku socdo ilaa xad uu ku biiray 1900 يسديتنكي حزب السلام أو حزبي كوري حزب الرفاه أما حزب العدالة والتنمية أو تنمية كأي سبيل مركي طبعا سديتنكي وكون ما كان أسكرتي قبصلي ولا كلا دري حسابتي أفري سديتنكي بدب هذا روح هو الله وقال هذا مركزو كبيري حزب العدالة والرفاه بس وراك مدير كدب شني سديتنكي وحنا نقضي السلطة المركزية في اسطنبول qaabka uu hadlayo qaabka uu dadka u xiriirinay laano waxana la yiraahdaa degree buu ku qaatay dhaqaalaha waqtigaas marka wuxuu noqday shakhsiya mutafawih markii iska soo ururna 2002 markii uu xisbigooda ku guuleystay Istanbul buu qabtay oo maayarka ka noqday Istanbul waxa la yiraahdaa markaasi waxa lagu lahaa 1 milyan كل مليون أو دولار بالغولها دولة أوس. مركي وقعنت كقبتي سبحان الله وحو قارسي إنه أنتي بحيو إسلام مركزي الدولة ده وسيروب مركي لقيمة مقالوين كوده إنه كردي مقالوين كوجود دخل قبضان له مقالة إسطنبول. إلى حد وقارسي شقاله هنا إنه بقول كي بسطح بقول شقاله الدولة ده وسو كردي. تبي توحي قاعدين دولة ده وسي أي نقطة. دولة كأود بدن دولة دي بحال أيها وكان الله يقارنه أردوغان مالهم بمساج كوجوين كهذا لا علمانية في الإسلام مركز هو أنت علمانية دون يحوق الله وحولون علمانية دو كمش قيني سو تركيا ما دام وياهي بقول كيف بقول ضل مسلم وياهي مركز هو حسوقاتي قبيل الشاعر ومسلم وأتراكت كمذا oo walaalnimada iyo isku xidhnaanta iyo sunnaha aad iyo aad uga sheekeen nimankii
khubarada ahaa ee calmaaniyiinta ahaa wadda intaasoo sannadood gacanta ku soo hayey mustafa kamaal ataturk uu sameeyey ayaa u khadiday dabeeto qoraal bay diyaariyeen aada u qurux badan waayo lawyerskii oo dhan bay haystaa dabeete waxaa la yidhi ninkaasi dadkuu qaybinaya isla markaasi diin cusub buu keenay sharcigu xaq u leeyahay in maayarnimada laga qaado in la xidho waa la iskugu quruurxiyey ilan mu'asasaadkii oo dhan bay haystaane dibaddaa loo tuuray weliba waxaa lagu xukumay 4 bilood in la xidho subxaan allah waxaa la yidhaha markii xisbigooda uu guulaystay isagay ahayd inuu madaxweynaha qabto laakiin cabdalla good wuxuu usoo qadimay si aan loo iskaga hortaagin inta xidhitaankii la xidhay dib loo eegayay inaanu xaq ahayn almuhim waa tii la soo daayay markii cabdalla gool uu qabtay ee ay dee ku guulaysteen 336 kursi ay ku guulaysteen waa la soo daayay xukunkii baa runtii laga jabiyey akhiiran waa kan maanta noqday madaxweynihii turkiga ninka loo yaqaano Erdogan muxuu ku soo kordhiyay haddaba intii ay talada hayeen waxaa lagu lahaa 750 oo milyan ayaa turkiga lagu lahaa yacni 740 milyan ayaa lagu lahaa turkiga iska daa wuxuu turkigu soo saaro 2013 waxay gaarsiiyeen inay lacagtii bixiyaan isla markaasi 5 milyan walbanka markii dee dunidu wadigii ogaa dhaqaalihii dunida ee Wall Street Mareykanku waa kuwii khalkhalka galay walbankii baa qayliyey wuxuu lacag baa loo baahay dalkii ugu horeeyay ee uu xamaahiyey wuxuu gaarsiiyey inuu 5 milyan amaahiyo iyadoo la leeyahay 100 milyan markaasi khasnada ayay ugu jiraan يعني waxa weeye xisbiga uu hogaaminay subxaana wuxuu gaarsiiyey 595 dhakhtar oo standardka Yurub ee caalamiga ah inuu sameeyo wuxuu sameeyay 500 oo jaamacadood intii uu gacanta ku hayay Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi. wuxuu ka dhigay maalintii Mareykanku markii Wall Street-ka uu dhacay ee la yidhi jaamacadihii isma bixinayaan ee la yidhi lacagta ardayda fiigaha lagu kordhiyo isagu wuxuu soo saaray dhammaan jaamacadaha Turkiga oo dhan waa bilaash annaga kharashkooda bixinay subxaan allah wuxuu sameeyey dabaabadii ugu horeysay ee Yurub iyo Mareykanku ay ka yaabaan intii uu hayay wuxuu diray yani waxa weeye satellite-kii maanta bariga dhexe ee Yurub iyo Mareykan uga warrami kara marka ay isqabtaan ayaa intii uu joogay oo istikhbaaraadka runtii askariga ah keeno wuxuu sameeyey in ka badan 1580 center oo technology-ga maanta dunida lagu hogaaminayo lagu sameeyo wuxuu sameeyey in ka badan 40,000 oo dadka mutakhasisiinta ah in meel la fadhiisiyo wax xalaal waxay u baahdaan la siiyo si ay ula tartamaan Mareykan iyo Yurub waa maxay ma yafuq al-hisban Turkiga xisb al-adalati wal-rafah 111 bay ka ahayn dawladaha marka la qiimeeyo xagga dhaqaalaha 111 maanta wuxuu soo gaarsiiyay 16 dalka 16aad G20 inay 16 ka noqdaan buu soo gaaray bal 111 subxaanallah ayay ku jireen 129 ka dawladood imankana 6 yani dalka 16aad ayaa u magarantay maalintii ay qabteen talada qofka dakhligiisu sanadkii waxa 3500 wuxuu gaarsiiyay 11000 iyo 450 dollar dakhliga qofka macnaheedu waxa weeye France oo agta dunida sidii u gumaysatay ilaa imka dhaqaalaha Afrika yani ma garatay Central Africa iyo ma garatay galbeedka Afrika imise dal bay diamond-tooda macdantooda maxay qaataan ilaa imka in uu ka hormariyo dakhliga Faransiiska qofka Turkiga dakhligiisa subxaanallah المهم باختصار waxaynu ku soo ururinayna waxyaalaha la yaab kale waxa kamida nimanka dunida haysta ma ogola meel la dhaafo المهم
turkigu wuxuu dhaafay xuduuddii gaaladu ay ogolaayeen. iminka turkigu maxay abuureen dabaabadii aada ogeyd inta tan ee ay tahay ayaan inis hortaago markaasay kii hore jiidhay isagoo arkaya kii labaad inay kii hore jiidhay ayuu isaguna isu dhigay markaasay kii kalena jiidhay markaasaa kii saddexaad isagoo arkaya in kuwaasi ay burbureen ayuu kii saddexaad haddana isu dhigay si uu u joojiyey dabaabada wa ficlan qaawamo dadkii oo acsala ayaa waxay ogolaan waayeen in ay shaqeeyaan diyaaradihii abaaji inay shaqeeyaan waxay la aqbali maayo yaa sameeyey qiyamka iyo akhlaaqda in la ilaaliyo waa kuwa lala dagaalamay mujtamac muslima oo waaciya oo wax kala garanaya oo xagga loo guuraya garanaya ayay sameeyeen markaasaa yurub iyo maraykan iyo yahuud way ka tashadeen waxay idhaahdeen yacni caajilan aw aajilan waa in laga takhalusaa turkiga waa in laga takhalusaa hoggaankaasi toosa ha ilaabina weligiin in habeen kastaad oo duma waa ka dambayn doono xagaa kasta oo yimaadana uu gu ka dambayn doono waxaa jirta awood weyn oo murugada u beddesha farxad gudcurkana ka dhigta caddo waxaa jirta quwaddii nebi yuusuf ka soo saartay jeelka kana dhigtay boqorkii masar waxaa jirta quwad weyn oo muuse ku barbaarisay gurigii fircawn kana dhigtay markii dambe inuu isagu u taliyo halkaas waxaa jirta awood fircawnada madaxa jabisa iyo cid kastaoo wax dulmida awooddaasoo maqasha baroorta kuwa la dulmay una gargaarta kuwa sabra kaasho ilaahay oo la jira dhankiisa haddii uu dariiq jiro waa kaas mana garanayo dariiq kale oo gargaar aad bidi karto uma sacabeeyo dulmiga mana jecli daalimka weligay ma karo mana awoodo xataa haddaan geeriyoonayo inaan baadil u caabudo anoo adeegsanaya magaca xaqa weligay waan jeclaa xorriyadda tan iyo dhalashadaydii haddaan ahay mid dabaxsan yaa ku yidhi waxaan ahay sumal cid kasta adeeca waa laga yaabaa inaad madaxa iga goyso laakiin lagama yaabo inaad madaxayga foorariso